diinteena islaamku oo ilaahay u soo dejiyey bini aadamka oo dhan inay ku badbaadaan waa inoo taallaa kitaabka qur-aanka axaadiista nabiga fiqiga islaamiga taariikhda muslimiinta qofka muslimka waxaa laga rabaa wixii dadku ay isku ogaadaan oo heshiis ku noqdaan inuusan uga bixin ama ra'yi ku soo ziyaaday ama dan kale wixii lagu heshiiyo in sidaa looga soo baxo tacliintaasna waxaa ina baray oon ka baranaynaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ghaswadii uxud markii ay soo dhowaadeen gaaladii yaa dadkii intuu isugu yeedhay wuxuu yidhi maxaan samaynaa qaar waxay soo jeediyeen dhallinyarada u badnaa aan bannaanka ugu baxno aan ka hor tagno odayaalna waxay soo jeediyeen aan magaalada gudaheeda ku sugno markay gudaha soo galaan magaalada dhexdeeda aan kula dagaalno hadalkii waa laga tashaday waxaa loo batay in bannaanka loo baxo nabiga sal allahu alay wasalam markaa la tashanayay ra'yi ahaan waxaa ka muuqanaysay ra'yiga ah in la joogo oo gudaha laga dagaalamo ayaa la qumanaa laakiin meeshan darsi waxaa la isbaraya nabigu markasta joogi maaye taariikh buu dadka uga tagaayaaye in wax la bartaa la rabaa markuu arkay sida loo badan yahay in bannaanka loo baxo ra'yigii uu batay wuu baxay gurigiisuu galay dharkii dagaalku soo labistay intii uu maqnaa yay dadkii isweydiiyeen waxay yidhaahdeen nabiga sida aan ka arkaynay wuxuu jeclaa inaan magaalada iska joogno oo gudaha kula dagaalno bannaanka aynan u bixin ee markuu yimaado aan dhahno rasuulka ilaahay ow iska joog magaalada gudaheedaan kula dagaalaynaaye ficlan sidii ayay sameeyeen markuu ku soo baxay oo uu yimid yaa waxay dhahen rasuulka ilaahay ow malaha waan ku dedejinaye magaalada dhexdeedaan kula dagaalaynaaye iska joog bannaanka ayaynan u bixin wuxuu ku yidhi nabi hadduu markii soo labista dagaalka iskama siibo ilaa ilaahay uu ka kala furaayo asaga iyo cadowga ka soo horjeeda ee ayna wadiya waa la baxay taas marka maxaan ka fahmnay tashigu markuu go-aan gaaro oo si lagu heshiiyo tacliintu waxay keenaysaa inta ka horraysa adigu isku day ra'yigaa inaad dadka ku qanciso laakiin mar haddii go-aan la gaaro haddii xataa go-aankaas uusan kula qumanayn adiga si aad u ilaalayso wadajirka ummadda meeshii loo batay ee dadku ay raaceen waa in loo hoggaansamo haddii ballan marka saa lagu qaato oo muslimiintu ballan ay galaan ama dhexdooda ballantaa isla galeen ama bannaankooda ballan ha la galeene qofka muslimka ah ballan la isku ogyahay waa ilaalin ka bixid ma leh waa in la ilaaliyo qur-aanka waxaan soo qaadanay ilaahay oo ina amraaya arrintaas iyada ah oo leh wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum ballantaad gashaan oofiya xataa haddii dad aan muslim ahayn lala galo ilaahay wuxuu yidhi fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inta ay idiin toosan yihin oo wixii aad ku heshiisan ay ilaalinaayaan muslim baa ballan jebiya aan laydin dhihine u hoggaansana haddaad ka shakidaan inay idin khiyaanaayaan oo si hoose ay wax usa samaynayaan oo qodobadii aad ku heshiiseen ay jebinaayaan idinkuna khiyaanada dhinaca kale ha kala ciyaarine oo ayagu way khiyaanaayaan annaan khiyaanaha dhihine bannaanka u dhigo waxaad tidhahdaan ballantii aan isku ogeyn waad jebinaysaane hadda wixii ka dambeeyey aan isku ogaana inayna ballantii soconaynin waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa'in ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin bannaanka usoo dhigaalin wixii ilaahay marna raalli kamaa mana jeclaanaayo in hoostan iska lugooyo diinteennu fiir waa tarbiya maka markii la joogay yaa waxaa jirta alislaam waxaa jirtay la yaqaano oo waxay samaysaa xarkay soohdaa subaxdii intay fadhiisato say u soo hayso galabtii markii la gaaray intay kala bixiso wixii ay soo soohday ama soo samaysay ayaa waxay leedahay xariggaan ma qurux badnaa markaas haddana waxay bilaabaysaa marka intii maantao dhan ay soo samaynaysay inay dib u furfurto markaasay furaysaa ilaa from zero meeshii ay ka keentay ay ku celiso bimacnaa wixii oo dhan bay soo baabi'isay saasaa ilahi wuxuu yidhi walaa takuunuu kallatii naqadat ghaslaha ha noqonina muslim haddaad tihiin haweenaydii maradii baashi ay samaysay dib u furfurtay walaa takuunuu kallatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaafan tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum ilahi wuxuu leeyahay ha yeelina wixii aad ku heshiisaan inaad dib u furfurtaan oo aad saa waxaad u yeelaysaanna waxay tahay an takuuna ummatun hiya arbaca min ummatin bal aayaddan u fiirsada waxay tilmaamaysaa dada heshiinaya tusaale heshiisaa la gelaayaa saasaan isku ognahay aalilaah qoladii heshiisay qolo kalaa imaanaysa
وحيلين كواس محد كل شيء ساس مياه ها أنت إن كاجا نعفي بدن أما كاجا ترى بدن أنا قاعد يجي ليس أكتر ده بلنت أسبوري أنا قاعد أسمع كوشة إلى أقوله مساسا وأنا محمش كسبنا يمر كهرباء مركاسا وان كبحي أذانا كراعي هل كاسا إنه وحنا جسوا قال أهل الصومال ده سياسة المركز الجوج آدو فالحر وآدي آدو حلا روح مع ذا وحكولين دم جوج تأه أيات جرت موجي صاحب تنمى جوج تأه مجرته بمعنى دم تماشي أي كاج شو بدرس على عديقة قف من لو بسوا هذاجي أو مسلم أو سلام يلنا هي هذه لو بسوا النقطة ماشي لو بقول ما نايو ومعاك وداعي محاي وداعي وحكافي عنا أركي هي أول وحنا نسكون من بلنت ووفوا بالعهد الأول وحصل الله وداعي لين أنا محاي هاي سعادة أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به إلهي ود امتحاما يا ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وحد كخلا سنتين ما أنت قيام إلهي ذن كخلا صار دونا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إلهي هدود دونا كل جندي ونكسبوا ذن كدجرها ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء قفكم ربنا وهنونكم ربنا وبالين ولا تسألون يوم القيامة ما كنتم تعملون وحد سمين إنسان والذي ويدين دونا هل كاس مركز يجوجنا ومدانا ترى ما يسوى رئيستان مركز شرار لسوي ماده وحن عن نقاع اللينو وحن عن السمينينو ما علمت قيامها اللي يسوي دين دونه ملك وضع الله إلهي نحو إلهي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة يعني إلهي وحي أي صوصة وحساب تاس يعني إلوه المركب آياتك لا سيعة جبادنا أو سيسعة وحيتها إلهي وحولادي دادك بلانتا كبحا دادك كلامك أركان محي نهايان بلان واحد في رسالة سياد واركي ساقف بلان انتو قال بلانتي كبحي دادك أكتو وسوكية وقف إنكارو كل عظيم أو المبدأ لهين أو ميلو بسوها لهين أو دادكم أنا ولن عبيهين سامر كي دعوة دادك المسلمين تعاه دينتا أي متلايان أي شاغنايان أو إسلام كأه وحال الربا دادك عن مسلم كأهين مركي معاملة وضع يهبقن كوضع أي أركان إنه يكسوا إسلامان هدي لكن مركي أركان هبقن كمسلمين تأوحن أو بلانتي يعني لالنين أو نسون حريسينين أو نهشينين أو هذا الحر إصلاحايا أو يعني واحد كستا إن حرام بك أهين الله أركو دادك كلام حيد آيان وركواس دينتا أي هايستان وحكمي علي السمياء هدينتو ويكي علي ساية هو شيء ساية لكن سومالي هارو يحوي هذين بقول يتبني أفرتان أقانا كا آخر السن مايو أيا بإساي قف بقول يتبني أفرتي وحي شيء لو شيء ولكن قوانكم قاري إنو سندك جلق أسينين كاس حقين لقينايا كاس وحي مركز سابقوا نقونايا dadka aan muslimka ahayn markay arkaan dhaqankiisa inay dhahaan kan meesha uu joogo meel la imaan kara ma ah ama haduu jiro qof islaamka ku cusub hab dhaqankiisa markuu arko inuu gadaal u simbirraxdo oo dib u noqdo markaas ilaahay wuxuu wala tattakhudhu aymanakum dakhalan baynakum khiyaano dhexdiina ka sameeynina oo markaas samaysan maxaa dhacaaya fatazilla qadamun ba'da thubutiha lug ayaa simbirraxanaysa oo dadkii diinta soo gali lahaa ama intay soo galaan ku cusub أياسم بالرحنايا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما سددتم عن سبيل الله إذن كان عذاب آيات ضمن إنسان كون استاج ضدك الدين تكون استاجتين هذا آيات ما سوى شيء ضد أنت ما سوى استاجين يراهدين دين تيال سوق جلين أنت اللي مجرته لكن محل فهمي حبقا كعرف هنا وحصاب ونقنايا إن دين تيال سوق جلواي هذا إنك ودن كانوا دبعتنا كانوا يقول عليه ضد كان الصوم على بنان كعالي بالروح والبخ qofku yaqaan la sheekayso si ay ku nooliyeen dadkii waaweynaa ayagoo muslim ah oo diintii bartay xagga tagay way iscelcelin karaan si kastoo ay duruuftu ugu adag tahay oo dhinac kastoo ay fiiriyaan waxyaabo munkaraad iyo waxyaabo aan fiicnayn ay ku arkayaan laakiin haddana waa dad diinta ku soo dhaxweynaaday oo Soomaaliya kala tagay oo quraan loo soo dhigay oo saas ah laakiin ilmihi ama ayagoo yar la geeyay ama meesha ku dhashay oo subaxdii intii la kaxeeyo iskool macallin gaala uu joogo loo geeyo
oo diin iyo wixii ku saabsan haddii doon dhinaca la iska dhigaa loo sheegin laakiin habdhaqanka loo dhaqmaayo iyo aan qur-aanna loo dhigaynin waxba loo sheegin wax kale looga sheekaynaayo sidee buu noqonayaa marka dambe waxay jeclaan lahay marka dadkaas oo kale markay arkeen ubadkii iyo say ka noqdeen in ay soo laabtaan oo ay waddankii imaadaan laakiin waddankii qori dab leh ayaa lala hortaagaya waddankii dhinac in ugu dhaqaaqada lama ogolo marka dadkaas say ku soo noqonayaan waxaa sabab marka u noqonaya qof kasta oo waddanka deganaanshihiisa hor istaagan oo waddanka inuu nabad noqdo oo dadku ay isu furmaan oo diintaas la wada barto oo lagu dhaqmo asaga sababtiisa ay la hirgeli laadahay dadka bannaanka ku gaaloobaya carruurta la gaalaysiinaayo ee inay soo noqdaan la jeclaan lahaa oo say u soo noqdaan ayna meesha ka muuqanin soo ma soo gelayaan wataduuqu suu'a bimaa sadadtum can sabiili illaah diintaa dadka ka hor istaagteen ka hor istaaggaasi maaha mid afka oo ha soo gelina lama dhahayo laakiin haddii la abuuro waaqic diintu say sheegaysa aan ahayn sidii dadka ay ku soo dhirin lahayn aan ahayn cid kasta oo dhinac ka ah qayb ayay ka tahay marka waa dembi weyn in ballanta laga baxo waa dembi weyn in akhlaaqda la baabi'iyo waa dembi weyn qofku in meel loogu soo hagaagan la waayo ilahay wuxuu marka walaa tashtaruu bicahdi illaahi amanan qaliilan ilaahay ballantiisa waxoogaa yar adduunyaha siisanina inamaa cinda allahi huwa khayru lakum in kuntum taclamuun maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq waxa aad haysaan oo dhan wuu dhammaanayaa ilahay agtiisa uma ku soo haraaya marka qofkaas waxaa laga rabaa hamigiisu inuu noqdo ilahay agtiisa maxaa kuu yaalla laakiin maanta hadday noqoto adduunye maxaan helayaa adduunye waa laga dhimanayaa qofkii suxun u raadiyana suxun ayuu u dhintaa waxba laga gaari maayo waxaan soo qaadanay xadiid oo khudbadii labaad ahayd nabiga sal alla alay slam ayaa nin u yimid wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow waxaad ii sheegtaa waxaad i tusisaa arrin haddaan sameeyo ilaahayna uu ijeclaanayo dadkuna ay jeclaanayaan waxaa lagu yidhi ilaahay haddaad inuu ku jeclaado adduunyada ka zaahid yacni adduunyadaysan hami weyn kugu haynin dadku inay hadday ku jeclaanayaan rabtidna dadka waxa gacantooda ku jira isiiya hadhayna uga faraha uga qaad inta haddaa lagaa helo ilahayna uu ku jeclaanayaa dadkuna ay ku jeclaanayaan imaamu shaafici abyaad uu leeyahay ayaan soo qaadanay oon kusoo gabagaynaya wuxuu yidhi adduunyada imaamu shaafici adduunyadu inoo tilmaamaya wuxuu yidhi adduunyada warmaya wuxuu yidhi ani adduunyo dadow adduunyo horta wuxuu yidhi yaa dhadhamiyey waman yaduq yaa dhadhamiyey adduunyo yaa dhadhamiyey asagaa ka jawaab horta wuxuu yidhi anugu fa innii طacimtuhaa anu waan dhadhamiyo adduunyo anu waan dhadhamiyey wasiiqa ilaya cadbuhaa wa cadaabuhaa waxay igu soo martay oo lai keenuu yidhi macaankeeda iyo cadaabkeeda bimacnaa kharaarkeeda iyo macaankeeda adduunyana waan saas qof walba saan bay ku soo martay oo hadda adi isuraysatid taariikhdaada adiga mar ay kugu adkeedna waad aragtay mar ay kuu fiicneedna waad aragtay adduunya xaalkeeda saas yahay hadday maanta kugu adag tahay berriyay fududaan doontaa hadday shalay kugu adkeed maanta inay fududdaa laga yaabaa adduunyada wuxuu yidhi waxaan arkay aniga cadbuhaa wa cadaabuhaa macaankeeda iyo cadaabkeedaba ay soo martay haddaba waxaa iga soo baxuu ma aha adduunye wax kale waxaa falam araha ma aanan arkin adduunyada ilaa guruuran wa baatila inay tahay wax lagu kadsoomo oo been ah waxay la mid tahay uu yidhi dhulka korkiisa qoraxdu markay ku dhacdo meel oo bannaan ah waxa kor socda camal saasay adduunya u eg tahay waa tii ayad ahayd ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu damaanu maan markii uu hadda laamiga kale markay qoraxda ay ku dhacdo oo meel ka fiiriso xaafadda la fiir adiga laamiga madowgiisa iyo qoraxda markay isku dhacaan waxbaa soconaaya waxaa umalaysa biyo inay meesha ku jiraan haddaad timaadid laamigii iyo qoraxdii baa isku dhacay wax biyo oo meesha yaalla male adduunyada wuxuu marka waa saraabkaas waa dhaan dabangaalle xaggay u socotaa waxa ay tahay male tilmaanu ka sii buuxu wuxuu yidhi wamaa hiya ilaa jiifatun wuxuu yidhi adduunyadu waa bakti neef baktiyey bakti fiiri qofka baatilka ku socda maalmo waxaa laga yaabaa inay wax isugu yara aadaan madax buu noqonayaa xoolu urursanayaa warkiisaa la maqlaayaa magacuu yeelanayaa laakiin waxa uu ku socda sax ma ah qofkaas wuxuu la mid yahay neefku markuu baktiyo oo kale neefku markuu baktiyo maalinta koowaad iyo maalinka labaad fiiri neef bakti ah wuu cayilaa wuu bararaa lugtiisa kor u taaganta calooshiisa weynaata baktigii waa meeshan baktiga yaalla ayaa la dhahaa maalmo ka bacdi meel ayuu ka duleeshamaa
aariyadii iyo wixii ka baxaaya qalfoof ayuu isku noqonaya way baaba'aya qofkii marka baadilka ku socday maalmaha yar ay isugu aadan tahay oo waxoogaa hor marmarayaan maadaama dhulka uu ku taagan yahay dhul aan uusan ahayn xaq uusan ku soconin waxa ku socda uu baadil u yahay isugu aadanaantaasi ha ku kadsoomina xur adduunyadu wax kale ma ilaa jiifatu waa bakti neef bakti oo kale calayha kilaabun neefkaas baktiyey waxaa dhinacyada ka gelaya eeyaal ay kilaabun hamuhunna eeyaashaasi hamigooda fikirkoodu wuxuu yahay ijtidaabuhaa baktiin inay kala jiijiitaan neefka haddaan tilmaamaynin ay markay ku soo baxaan koo inta ka soo orda koo inta ka soo orda way kala jiijiidanayaan waxay kala jiijiyeen ma wax fiican baa marka wax fiican waa bakti waxay kala jiidanayaan hamuhunna ijtidaabuhaa qofka wanaagsan taluusi imaam shaafici wuxuu yidhi fain tajtanibhaa adugu baktigaas la kala jiijiidaayo haddaad isaga fogaato kunta silman liahlihaa aydii kala jiijiidaysay waa ka nabadgelay haddaad xagga iska marto oodan ku soo leexaninba mina tartiib aygu kuma soo aadaayo laakiin wain tajtadibhaa laakiin haddaa intaa ku soo leexato aad tiraahdo dhinacaan ka jiida anigana baktigii naasacadka kilaabuhaa aydii ay adiga ma kala fakanaysaan faduubaa linafsin hadda wuxuu yidhi waxaa badbaaday oo naf uulicad la jeclaysiiyey waxaa badbaaday oo laantii jannada ay u sugnaatay naf la jeclaysiiyey qacra beytiha gurigeeda dhexdiisa baktigii la kala jiijiidanaya faruu isaga qaaday albaabkiisuu ka xirtay waxba kuma falaayo bes wuu nabadgelaayaa hadda bal waddankeena waxaad fiirisaan khilaafaadka ka jira ee qaylada inagu dilay masalaad ha la tukadooy ha la soomo ha la xajiyo maa la isku haystaa maya salaad masaajid walba laga adaamaa tuulo kastana masaajida ku dhisan maxaa la isku haystaa oo yaalla meesha waxa uu isku haystaa oo kalima ah tii hadda imaam shaafici uu sheegaayo anaa jiidanaya koo aa jiidaaya koo aa ka soo jiidaaya koo xagga u jiidaaya waa laga soo celinaa marka waa wasfi daqiiqa imisaa jiijiiday oo adduunkan soo martay oo maanta waxba aan ka haynin marka saas daraaddeed adduunyo xaalkeed waa saase haddaad rabto inuu ilaahay ku jeclaadana adduunyadaas iyana qiimo kula lahaanina ka shaqayso si xalaal ah inta aad joogtana ilaahay ku caabud dadka dhexdooda wixii ku saabsanna waxa ay haystaan ay damaca uu kaga jira ay kugu jiijiidaan haddaa u dhaafto way ku nabadgelinayaan marka in sidaas ayay ku saabsaneed markii la isku soo koobana waxay tahay dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay mabaadi' yeeshaan oo dadku markay arkaan ay ku soo islaamaan hadda ummadaha kale waad arteen waa ummada nool hadda maraykankaa ugu dambeeyey doorashaa la qabtay odaygii meesha joogay marna kumuuna tashanay inuu baxaayo inuu soo noqon doono ku tashanaayo laakiin dadkii ay isugu tegey waxay dhaheen naga raalli ahow markaasuu qayli xataa derbi ay soo koreen kooxdiisi adduunkao dhan aa la yaabay oy maxaa idinku dhacay soo ninkii dadka waaweyn ahaayo dhihi jiray maxaa ilbaxnimo aan hogaaminaynaa waa maxay waxaad samaynaysaan ma kursi ayaa la isku kursi waa doorashaa la galaa waa lagu kala baxaa maxay tahay waxaan marka wahaakada marka arrintani ummadahu waa ummado nool oo wixii way iska celiyaan laakiin shacbigeena soomaaliyeed mushkila aynu ku dhacday dad yar unbaa dadkii isku kor haysta runta iyo xaqiiqadana laisu sheegi maayo mid kasta wuxuu leeyahay wasaan isaana jir hadday dadka ay dhihaan bal bannaanka soo fadhiista oo wixii xaqiiqaa dadka u sheega hadda waa laisu sheegaa ficlan oo hadda berigi hore si aan jirta kal maaha hadda wixii dhan waa laisu sheegaya facebookaa lagu qoraayaa waa la hadlaayaa hal arrin unbaa mushkilada ugu haysa markii wax la kala saxiixanaayo ama wax la sheegaayo yacni waa wax gaar ah oo dad gaara meel isla gelaaya taasoo kale markay dhacdo waxaa la rabaa ammaano ilaahay laga cabsado maxaa yeelay ilaahay baa caliimun bimaa yafcaluun ilaahay baa og laakiin haddaan ilaahay laga cabsanin kiiya waxaa noqonayna hadda dhahaynoo kale 114 haddaan kaaman akhrisanaayo waxaa dadka kala celiya waa akhlaaqda iyo iimaanka iyo alla kacabsiga marka inaan dadka ku barbaarino qof walbow xaqa ku dadaal ilaahay ka cabso wixii ballanoo laisku og yahayna qof walba suu ilaahay kuula og yahay dhinacaaga u ilaali qofkii buriyana munaafiqna wuu noqonayaa dembina wuu ka soo gaarayaa amarkii ilaahay oo fulin oo yani uu jebiyana wuu noqonayaa qofkii kale muslim oo hagaagsan oo toosanna uu ha fahmo waxa la isku hayo sida uu yahay diinteenna aan ku dhaqanno ilmaheenna aan barbaarinno akhlaaqda aan wanaajinno
ummadda aan isu keenno midnimo iyo walaaltinimo aan ka shaqayno qofkaasa wax kala aada ilaahay baa ku filan adduunkan waxa ka socdo dhanna ilaahay wuu jeedaa icmaluu bima shi'tum innahu bima tacmaluuna basiir waxa alla waxa taan sameeyay ilaahay waa idin jeedaa marka ilaahay ayaa ka weyn cid kasta oo laqdaba iyo xumaan wada walaa yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi qofkii shaqada wadana asagu baa marka dambe uu la gadoomi doonaa rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih